السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة أكو حرن جنان كنا عيمو قبات هبين إيمانين انت إني تهابها إني وعناتو هدي واسكت تقاني باش قدود من النانا كسي أو سبسكرايب لديه جري قنبريل كتابو سي آهي وحول بقولو سعودين إن شاء الله بإذن الله الكريم شير كان هاي المامنة لايكتا هاي المامنة كومنتيغا هاي المامنة سوا إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنا شيء أملينيا دلائر وأنا شيء أملينيا هذا كهر شيخ عبد الحاب أيان أتجي بوصاصو أيان تجي كبر أيان كسر شيكي وجيم كدعي كل يوم دقيس دون تلا دلائر هذا تنا وحي تهاي بوصاص مركي أن تجاي قصوين بدران كسر أركو وأنا سو شيء أملينيا كل يوم جنر كي بكجرا كفير صدا sheekh cabdi xaaq markaa u tagay qisada kale oo labaad oon soo arka waxay ahayd ilaan gabar ayay ahayd inta aan kaga sheekay moogta oo aniga xaadir ahaan taagnaa boos aniga quraan saar u aaday quraanka ilaahayna horta maasha allah waa daawo ilaahay baa noo soo dejiyay yaa ilaahay la isku daaweeyo dhahay ma fahanteen bas qisada labaad oo inii wada waxay tahay oday waayeel ah waayeel saasan uma sii bahalkeysana laakiin waa adiga uu socon karay balse laakiin xanuun ayaa lugaha ka laabay xanuun ayaa ka laabay lugaha xanuunka ka laaba ayaa inii soo wadaa ninkaas weyn ilaahay baa weyn oo waaxida dibadda laga keenay dibadda ayaa laga keenay mareykanaa laga keenay mareykanka markii laga keenay waxay ahayd 2017kii bishii waxay ahayd gabadhi marka inii soo sheegayay 3 bilood aniga meesha soo joogay bishii waxay ahayd aniga waxaan ka tagay inta bishii muxuu ahayd 2017kii gabadha iyada ahna waa tii bishii 3aad ahayd isla bishii 3aad museegaas la keenay odagaa marka waxaa la yiri America iyo meel walbo waa laga daalay xanuunkiisa xanuun kale ku dhigana ma lehe labada lugoodaas saas u laaban odayga midaanteen museega labada lugoodaas aa laaban marka museegii quraan la saaray odag quraan si loo saaray asaga hore wixii kama qaban oo waxba kuma soo deganin mustaqaylinin qaq mu dhihin hore kama dhihin hada quraanka maalin baa la keenaa galaba la keenaa subaxa la keenaa Mareykan la keenay wuxuu ku socdaa oo lagu keenaa gaariga lugaha lagu jiidaa oo micnaha fadhiga ah oo jiisaska loogu talagalay jiisaska maarag ayuu saaran yahay wadaadka odagaan bas sida runta ah qof walba markii waxa laga saarayo interview oo maskaxdooda joogto way daawanayaan barxadda la isku keenaya ani marka waxaan ku jiraa dadka daawanaya isagana odagii marka waa lagu soo degay odagii marka lagu soo degay waxaa ka dhex qaylinayso gabar dumaashidiisa oo naagtiisa la dhalatay xaaskiisa la dhalatay ku hooyo iyo ku aabbo tahay yaraankoodina waa dumaashidiis oo naagtiisa la dhalatay yaraankoodina waa asaga ayaana soo koriyay asaga ayaa soo koriyay lugahana meeqa sano ay laaban yihiin 30 sano ay u laaban yihiin odaga jis gabadhaas ayadoo yar ayaa walaasheed soo wadatay meeshay ku kortay iskuul ka bixin jiray wuxuu ka bixi jiray dugsi ilaa heer jaamacadeed ayuu ka bixi jiray ilaa America u geeyay ilmihiisa kale ka dhigtay dhabtiisaas ay ku soo kortay ilmihiisa iyo asaga waa isla ekaayeen ma fahantay aabbo oo kale u noqday laakiin waa dumaashigeed guriga waxaan ku dhahay in laga dhalay ayaad moodaa isku hooyo isku aabba moodaa ilmaha yar ee waalidku u tahay laakiin ayadana markaas way yareed odayga markuu qayliyay oo dumaashidii ka dhex qaylisay sheekh cabdi xaaq uu weydiiyay wuxuu dhahay maxaa kugu watay waxay leedahay gabadhii allah ninkaa wuu ii fiicnaa nin wuxuu ahaa jaamacad geeyay nin wuxuu ahaa sidaan ii sameeyay nin wuxuu ahaa fiican nin wuxuu ahaa wax walba ii qabtay oo wax walba ii hagaajiyay oo waxba iga hagranin oo ilaa America ii geeyay waxbana iga hagran ilaa abtinowna yaa wax allaale iyo waxaan u baahday isii oo gabadhiisoo kale iga dhigtay
oo nin xitaa duu soo doonto asaga uu mas-uul ka yahay waalidkii asagaa loo tagaaya waalidku usii sheegaya balse laakiin sida aabbo oo kale ayuu ii ahaa gabadhi ayaa ka dhex qaylinaysa dumaashadii ahayd yaa dhagaysta gabadhi ayada ahayd wuxuu yiri sheekh cabdixaaq wadaadka markay odaga ay ka dhex qaylinayso xataa maaragta birta isla boodaya isaga dhow gariiraya wuxuu yiri su-aalan ku weydiine ninka intaasoo dhan kuu qabtay maxaad ka rabtaa oo sidaan ugu silcisay oo sidaan ugu gashay waxay tiri xaasid ayaan ahaay tiri xaasid ma jirin anigaa keenaya tiri cadow ayaan ku ahaa ilaaha in ku dhaariyey qof asagii la koriyey oo wax allaale iyo wixii ay doonto la siinaay misana dadka sixiraysa ka war way sixirtay sixir ayay usoo qaaday meel uu mari jiray markuu salaad subaxa uu tukado uu kusoo laabanayo oo adiga ee barqad oo kale ay taho odayaasha iskala soo shakaysto intuu soo socdo asagaa ugu soo horeeyay ila asagaa baxay dadka kale oo iska hururdaa ayay meesha ugu shubtay sixir ee nin usoo sameeyey wuu ku istaagay uu soo galo wuxuu ka bilaabay xanuunaya hayo lugaha ay xanuunayo lugaha ay caajisan ma kici karo adi salaadii xitaa wuu aadi waayo lugaha i jareyna siduu ugu haayay oo lugaha uga gariirayay oo qandha lagu soo tuuray micnaha uu si kalo nooc kale ugu noqday ninka sheekha ah ninka dhammaa oo duq ahaayo oo odag reerka oo masaajidka aadi jira masaajidka ka fariistay yaa adi muddo markuu bil uu saas kusii jiro bishii labaad la galay lugihii xididadan dhan way suuxeen xididada lugihii eberay noqdeen dhaqtar kasta oo la geeyey wax uu qabo oo ilaahay abuurta male waxay leeyihin neerfa haayo kana haayo kidhicu haayo waa la qala xitaa waa la yiri qaliin iyo waxbaa lagusa sameeyey dhaqaatiir badanaa iskugu tagtay waa la fiiri qaar waxay leeyihin waxba ma qabo qaar waxay leeyihin seedahana isku dhegay yaa dhibaato badan u maray lugihiisa 30 sano inta may ku taalaa iyadaaba 40 iyo abaf jirtaba gabadhaas uu soo kori 40 iyo hehe ayadaaba jirtaba 30 sano lugaha u laamnaa ma fahanteen markay waxaa sameynaysa xitaa gabar yar ayada yaa ilaa heer jaamacada laga soo dhiibay maxaan ku irkaala arag waa la soo koriyey nimcaal ma dhahayso waxaas anaa ku sameeyey ama ka qoomamaysa ama ka laabataa yaa way ku faraxsantaaba gurguurashada u gurguuranaayo musqusha waa loo qaadayaa waa la soo seexinayaa inaan qof lugihii ka curiyaan waa lugihii eber inta dambe intaan bas ka noolyahay way ka dhex qaylisay xaasidna weligiis iyo aliis ma guulaysahay yaa waa cadawad waa xaasidad yaa ilaahay soo hanuuni wax kaloo dhahna ma laha sixirroolna hadda markuu waxa sixirka uu sameynayaba waaba gaalka kaafirka waa ka daran yahay soo ma ogid nin dhan oo dumaashigeed oo guriga kula noolaa oo soo koriy oo wax walba siin jiray waa la yaabaan ku dhahay markii loo sheegay sheekada inisoo kala dhaafee istaagaa la yiri istaaji wuu kacaa bahalka biruhu qabsada istaagaa la yiri wuu istaag ayada way ka dhex cabaadee alla mardaba ma laabanayo anaa saan yeelayay anaa ba'ayay anaa kan ku sameeyey anaa qur-aankii ku daldalo qur-aankii ku akhri oo wadaadka waxaan ku dhahay ul lala dhacay sheekha maxaa la jiray duqi wadaadka ul lala dhacay lugaha laga garaacay lugihii dhulka ku garaacay adiga marka dambe wuu istaagay boodbooda dha socsoca joog lugihii ka sii lugihiisii ku istaagay aa u malaysaa hadda inuu dhasha camal saas uu istaagay oo lagu qalloocnaayo saas ugu bubuusnaayo yaa sheedhaanka ku jira oo dimaashadeed iyadoo sixirtay baa laga bixiyey maalin walbana qur-aankaa la keeni jiray boosaasaa hotel uga kireysnaa meel sheekh cabdixaaq agtiisa ah oo xaruntiisa hoteelo laga wada kireystay aniga ilaa hadla hoteelan ka kireystay la-aana qur-aankaas hal mar micnaha haddaa is soo saartay oo soo laaba waa dhib soo maaha subax walba inaad tagtid galab walba tagtid way fiican tahay bas adiga ninka weynaa ilaaba weyna waaxidahe meeshii ayaa ugu dambeysay curyaannimo iyo lugihii u laabnaa iyo shaqo la-aanta iyo dhibaatada iyo rafaadkay u geysatay horta waa wax qoran waa wax u qornaa balse laakiin middaa la nooleeda dumaashadiisa saas ku samaysay
miyay guursa rabta ma waxba kale ma waxay ka rabtay ilaa hadda waa la fahmi waayey xaaskiisii oo waayee lala socota way yaabtay dhakafaarta way la yaabtay waxay tiri ma u malaynay walaashay inay saa noqonayso laakiin qof walba shayddaana ku xiriiro oo shaydaan baa muxuu ahayd wax walba ku diraayo ilaahay naga qabto inta muslim ah xaasidnimadana bataata ma u fiicno xaasid ma fiicno waa sheekhaas hadda oo miskiinka ah oo duqa ah 30 sano soo lugu asagoo dhalinyarada soo lugu laabtay 30 sano lugaha jiiska ah saasa u taagnaa waa daawanayaan haasa u fiirsanaa yaa waan yaab qosooyin badan aan meesha ku soo arkay asxaabay way noo soconaysaa waan kaga sheekay doonaa qisadan qiso ka daran oo aan la yaabay oo xanuun qof ku dhacayna waan kaga sheekay doonaa oo wax kale loo maleynayay haddii ilaa yiraahdo la yiri ma ahan waa wax ani aan saas u taagnaa wacdarooyin badan aan meesha ku soo arkay ilmo yaryar oo jiran loo maleynaa madaxa laga qala xataa aan ku soo arkay waa shahaadanaysid iyo wixii laga helay ma fahanteen insha Allah biidna Allah kariim waan kaga sheekay doonaa duqina wuu fiicnaaday waa uu raystay waa uu ka kacay ya asagana quraanka lagu sii waday asagiyo fiican oo hadana quraanka sii saarayay oo ilaahay uu ku bogsiyay lugiisu ku socday awal asagoo jiisa la keeno meel ku fadhiyo marka quraanka ilaahay uu fiican yahay in lagu dadaalo dadka ya neerfa inta ka jira iyo shaydaanka waa sixirka fariisiyo ilaahay naga haayo inta muslim ah wax fiican ma qofkaas waxa walaaqa oo sameeynaayo iimaanka ilaahay ku celiyo ilaahay subhanahu laakiin faamiliga ku soo jeeso wax ka xun malaha xaasida ah kulaha dhagayga ku maqlaayo wallahi xaasida ay tiri waxaan sameeyaa cadow ayaan ahay tiri la ii soo diray nin ikoriyo oo saan haddana saas ku sameeyay marka waxay tiri mar dambe uma laabanayo alxaasil wariga dhamaantiis waa laga bixiyay waana laga saaray lugihiina way u fiyoobaadeen wuuna fiicnaaday maasha Allah ay noqday asagoo shaxshaxa oo joogo ya oo quraan mar walba la saaray ayuu meesha joogo aan arkay aan daawanay ya marka ilaahay baa caafimaad iska leh in lagu dadaalo quraankan way fiican tahay in la saarana way fiican tahay in mar walba aad ka dhex bixin kitaabka ilaahay way fiican tahay ya dadka dhaqaatiir inta badan ku ordana ku xafiicina quraanka ilaahay aad ku orodid ugu saaro ma sha Allah waan salaamaya walaalahayga share comment subscribe ma xaqiiqan ma sha Allah aan ka sheekay doona qisooyin la yaab leh oo ku arki meesha